Asalaamu calaykum Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak waxaan imaaday bishii barakeysaneed ee kheyrka qabneed Ramadaan Kariim ayaan ileenahay meel walba adduunka joogtaan halka aad toos noo socotaan waa youtube-ka aan ku kulmi jirno waa youtube-ka dadweynaha waa youtube-ka aan jeclayn Soomaali Tijaabo toon iyo kow maanta muuqaalka inaan ku dheeraado ma rabi waxaa rabaa dadka Soomaaliyeed ama qof walba muuqaalkan uu soo gaarayo inaan degniin ka siiyo cunida sambuuska waxaa leeyahay degniin ha cunin sambuuska xilliga anfurka hore naftaada ayuu khatar gelin karnaa sambuuska waxaa loo ogol yahay bis lacag waxaa dhici karto dad sambuus jecel ramadaanka inay cunaan jecel laakiin waxaa dadkaas ula talin lahaa sambuuska ha cunin xilliga ugu horeysa ee anfurka waxaa cuntaa markaa anfurtid kadib cun taraawiixda camal cun maxaa yeelay dhibaatada uu leeyahay sambuuska anfurka xilliga hore marka afka ku bilaabaysid dibka uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu kuu kicinayaa gaas xataa adiga hadaa qabin gaas wuxuu kuu kicinayaa gaas marka mala rabo sambuuska in anfurka afka lagu bilaabo nabigina sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anfurka ugu horeeyo waxaa afka lagu bilaabaa timir iyo biyo xataa biyaha la qasqas ma aha biyo cad ayaa afka lagu bilaabaa timir iyo biyo cad hadaa nabigan wuxuu yiri sunno waayo waajib ma aha timir iyo biyo cad sambuuska loo ogol yahay inaad cuntid maxaa la dhihi jiray xilliga taraawiixda laakiin ma loo ogolo inaad cuntid afka hore ee ku anfuraysid naftaada ayuu khatar ku lahaan rabaa digniintan ila qaado. Assalaamu calaykum.